إيدي ذا إيدي ذا كم يقولي أنا دست هذا أنا أمر حصل شيء عن كذا جوري ما أجي قولي أنا دست إسكالها وأنا لكن لقى قبتي يا وأنا لكن لقى قبتي دينك لقاها لكن قبتي أدينك إذا سوت توسيين وحن كوير دتك ورصو أسباب وأجيه ويدي وحن ربعنا كهذا إذا ما دي أسلوبته oo la iga soo bedelay aan hore u xukumi jiray oo dad aan run sheegaynin taliyaha cusub warar been ku dhuraayo inaan runta u sheegan raba marka hore laba jeer ayaan asluubta ku noqday markii hore way ugu cusbayd markii dambe wax badan oo maanta ummaddu ogtahay oo dadweynuhu ay og yihiin Soomaaliyeed dawladuna ay ogtahay ayaan aniga qabtay meelaysan weligii taliye iga horeeyay uu sangeynin waan geey marka malihi in la iga baan sheego malihi talihi waxa loo sheegay been saraakiil meesha ka shaqeyso asluubta yaa beenta ku dhurtay inuu tii qaataan u malay marka koobaad asluub hubkeeda yaan ka warbixinayaa gaadiidkeedaan ka warbixinayaa meelaha ay kala degan tahayna waan ka warbixinayaa warka runta ana sheegay kuwa meesha jooga ma ku sheegin qaado da taliyihii tahay marka koobaad 60 qori oo 30 ah xilligii farmaajan keenay ayagoo haysta qoriga ka shucayga leeyahay hal qori oo caadi aan haysanin yaa waxaan keenay 60 kaas waa waagi farmaajo 60 kii oo lagu shaqeynayaan ka tagay waan soo laabtay dadkan waxa waaye ciidanimadiisa ay dhiman tahay ummadda tababaradoodan waa dhiig joojin ma dhamaystaan dhiig joojin waay okay dad badan oo marka la fakaday qoriye la tagay yaa jira meel kasta waxa ula galeeno waa tariibkii hore kan dambe markii ciidankan la ii tiriyay oo iigu horeysay 1414 askari ahay maanta 5000 oo askari wax yar dhiban waay 5000 oo askari wax yar dhiman meeshaasan gaarsiiyay ciidanka dhalinyaro waxaan ugu imid odayaal rag iyo naagaba leh markaan imaanayay 500 oo sarkaal markaan ku fafaahiyo 380 gabdhood dad hawlgab ah boqolkii dadka aan ku sheegay boqolkii 70 boqolkii 60 waxay ahaayeen da'da 70 ay jireen oo 60 waa ka koreeyeen askar da'yar ah oo shaqaysa ma dhamayn 300 askari meeshaasan horta asluub ugu imid maanta 5000 bay maraysaa waad arkaysaa uguma imaan hal baabuur oo kood ah oo asluub leedahay oo shaqeynaysa baabuur bay maanta leeyihiin laba bas waan keenay laba gaari oo iska rogo BG ana waan keenay intaba waa soo gaday labada bas waa la keenay oo dawladda ay siisay wasaaradda ay keenay
labada iska roge ina waa soo iibiyay lacagan ka soo baxshay jeebkayga mid kale gaari BG ah nooc BG oo military-gana ah nooc shicibka haysta yaan gaday oo ku soo kordhiyo uu yaala waxa kale oo ku soo kordhiyay laba baabuur oo Leyla Calawi ah oo had yaalo oo laba qori saaran tahay iyo labadooda qori yaan ku soo kordhiyay waa meel waxa kale oo inta ay dheer markii uu Xasan Sheekh yimid oo uu joogo 500 oo qori iyo 450 waxay dad xogaa waxba iiga jira oo qori oo AK 500 oo qori aan la siiyay 500 waxa haysta ururka furunta degan dagaalka oo Xaaji Cali haysta taasasa ula soco waxaan ugu imid taasasa ula soco waxaan kula ku sheegay gaadiid waxa tiri sida warka igu soo gaaray bas la qaaday hub inaan keenay ogi weligay kama qaadan hadda 20 qori oo koonfur galbeed aan ka soo qaaday yaa isluub uga tagay hadda bal hadda u fiirso koonfur galbeed leeda waxa kale oo jira baabuur shacab leeyahay oo la buufiyay ilaan baabuur ma aanan lahayn oo Cabdibaliyaal intaan buufinay aan ku shaqaysanayna noo dheera aygana waa jireen kuwaasna dadkii lahaa baa loo celiyay kuwa noocaas inaad keento adiga laga sugaya hadhiin marka ha qaadanin taliya wax qaatay ha qaadan wax dada meeyba haba wax meesha jooga sidaas markaan ku arkay odayaashii iyo jananadii iyo korneeladii ebra markaan arkay kuwa wax taray aan ahayn yaa waxaan sameeyay ciidan da'yar yaa qoray mar labaad saddexaad afraad 500 ciidanka markaan qoray yaan maxay ahayd too niman saraakiila yar yaan dalacsi nimankaas markaan mar 2 iyo 3 dalacsiyay oo nimankii erarka ah waa isku aruuriyay odayaashan waxaan iri ma shaqayn kartaan iska fariista shaqada gurigiina jooga nimankii daayarta ahaban ku wareejiyay shaqadii oo aan dalacsiyay colaaday ka qaadeen marka mana shaqayn karaan xabsiga habeen iyo maalin xabsiyada waxa gala mobilka daroogada waxaas yaa aygo jooga la galin jiray nimankan daayarta waxaan meeshii u geeyay oo staffkayga u badan waliba waxaan u geeyay inay shaqada siday tahay u qabtaan oo mobil aan uusan ka soo wicin dadka xabsiga arintan u geeyna taasay waxay u fasireen wax ma tarayaasha meesha jooga waxay u fasireen qabiil buu geystay asaa geystay aniga xabsi wax ku jiro maxaan u geysanayaa shaqalan ka rawaay irsaaqad xabsi weligay muunin taas waa meeshaas irsaaqadna kama rabo dad xiran taas saa ula soco waxaa kaloo jira markaan dhabti aan sheego aniga meel cidla ahaan ka qaaday meel ciidanimo leh oo dawladnimo lahayn maanta geeyay tiradooda ummaduna ay ogta waxaan ugu imid xabsiga weyn oo xabsiga dhaxa ah waxa kaloon ugu imid kilometer 7 ciidanka asluubta maanta waxay leeyihiin isbitaal abidkeed lama sheegin asluub isbitaal leh hortay isbitaalka waa weydiin kartaan
waxaa lagu yiri ma hada company u dhiibtay isbitaalka dhaqaatiirtii anaga aan lahaynaan geynay 3 qofooda meesha yaa ugu firfircoona daawaan ka buuxinay iska faalaha la saaray waxa dhan baan dhignay qalabka isbitaalka lagu shaqeynay waa dhan waxba kama maqna ICU-gi ugu dambeeyay waan keen xitaa wax kale iska dhaaf sariiriya yaal wax walba yaal waa wadi weynay marka daawada miiska aan saarnay waxaan dadka lacag la'aan lagu daaweeyay kaninkii u dambeeyay markay qaateen nin walba hore u dhaqaaqay waxaan u weynay dhaqaale aan ku wadno dawladdu way ogta dhaqaale aan ku wadno yaan u weynay okay waan fakaray maadaama loo baahan yahay isbitaalka inuu shaqeeyo niman company ah oo dhaqaatiir ah kula heshiiyay inay shaqadii wadaan oo ayagu ku shaqeystaan isbitaalkan aan wax ka maqnayn alaabtii fiisa tarbiyada xitaa waa taala ku shaqeysta ayaan min al ayam arintaas markaan sameeyay saan u wada shaqeynayna ay dhahan maalintii 10 qof oo asluub daaweeyaan 10 kaas noo daaweey adinkana ku shaqeysta isbitaalka maadaama anaga aan daawo u weyno tabar u weyno wax keenay weynay company-ga sidaasan ugu wareejiyo waxa lagu yiri ma hada dad u dhiibo ma og maskaxdii dhistay aniga laha ayaga ma lahayn ya haddana ana dadka u dhiibay balse oo hadaan lacag ka qaatayna weydii ya taasina waa midaas waati isbitaalka dhismahan u noqona guriga maanta aan ka guuray iyo meesha xafiis oo ay adleedo ka soo horjeedo labadaba ana dhisay haanta hoosteeda waxa ka dhisan ana dhis okay ka soo gudub xabsiyadii waa halkaas gaalka ayaan ka dhisnay xabsiga ciidan baan ka qoray dugsi aan ka dhigay 300 askari yaa tababarkaas ka soo baxday oo barkood maanta Xaaji Cali jooga macnaha difaaca hore ka soo gudub maanta ciidan baa jooga gaalkacay xabsiga ka jira mana furno oo lama geynin maxaabiista wax ka maqanna malaha taasna xagaan uga gudbaa waan ka gudbiyay inay xabsigan hortiisa la asluub ay taagnaato waxaan u gudbay cadaado xabsigan ka dhisno waa kan hadda wali qabyada oo sii socda ka soo gudub dhusum ciidan baa jooga ka soo gudub dhusum raab imow xabsi weyn oo kan ka sii weyn aan ka cabirnay oo dhismaheeda ka wadnaa ka soo gudub cid intaas xoolo nagu siisay xabsiga gaalkacyo hay'adaha dhisay meel kale oo intaan wax ka dhisnay dhaqaale cid kale nagu siisay walaa dawlad midna ma jirto xaq soo wareeg heerkaas ay marayaan maanta gobolada dalka oo dhan bay joogtaa asluub laga yaqaana shalayna xabsigan hoostiis iridda laga gala magaceeda Torobora leeyahay ninkii asluub oo ka soo baxa markaan imaanayo waa la qabsan jirayno booliiska gumaysan jiray nabad sugid warkeeda iska dhaaf maantana waa ciidan dawladeed oo la yaqaan waxaan ku soo dhuudhuumanayo aad lahayd kulligiin kun dacwad ii keenteen aad lahayd waa joogeen marka ayada ay hadeerba hal nin oo wax gooyeen kuma jiro hal nin oo wax gooyo kuma jiro waxaad ku ogaataa ninka taliixigeenka calanka ku dhiibay ma taasoo sharci u lahaa inuu ku sii ku wareejiyo calanku la hoosofta talii la bedelay oo fadhiya ya marka inayna dad ahayn taasaad ku ogaataa waxa kale ku ogaataa waxa tiri kulligiinba wax oo dad ama ahaydin xafiis cabashaan furaya cabashadiina lagu qaadaya maxay yaalo meesha cabashadooda aad u furaysaa oo ka qaadaysaa beenaaliyaal booy tuugo oo dhuxliyaal ah mida ku yiri waa la gumaystay
maxaa lagu gumaystay maxaa yaallo meeshii lagu gumaystay dhaqaalaha ay dawladda siiso asluubna 200 markii laga reebo waad arki doontaa adiga hadda maanta waxaad isleedahay adiga iyo kuwa soo aruursatayba meeshan dhaqaalaha yaallo waa ciidan oo waa adduun xisaabtii hal raadiyay intay taala amiin caamir kartoonkiisa soo saaray hadda ka hor aadan madooba gudoomiye baarlamaan laga dhigay shariif xasan ka horeeyay aadana lagu bedelay aadan madooba baasi waay meelay taal kartoonkaas waxa soo dhigay amiin caamir wuxuu yiri albaabadu garaaca dadku wuxuu weydiinaa shariif xasan intee lacagta ka heli jiru leeyahay aadan madooba yaa hadda maxay ahaytay haday asluub dhaqaale leedahana waad arki doontaa dawladna weligeed wax ma tarin 200 waxaan ahayn mootadoona umayna gadin yaa waxaad arkaysidna waa waxaan aniga keenay oo jeebkayga aan ka gaday shahaad aan ku keenay iyo 20,000 oo asluub la siiyay waa 20,000 yaa 20 kaas waxaan ku gaday waay day gaadiid tahay day wax walba dhibowga hadda ugu dambeeyo meeshii iridka taagan oo aad soo martay nin baa qori la taagan aad leedahay basuukiyaasha gadgaduudan meeshii ana iska laho uga tago soo gaday beeka amyadii aan keenay beeka tayadii iyo basuukaha saaran kilometer 7 iyo xabsiga korkiisa ana iska laha weydii ayaga waxaan meeshii joogo nin maalinta bastoolad ku soo kordhiyay asluub maba jiraba ama ku soo kordhin karaba boodbood lama rabo ani adiga colaad kala nagama dhaxayso adaaba sheego siyaasadan isku haysanaa tiri adna madaxweyne u tartamaysa adna madaxweyne u tartamay taas barbale ma saasan warka inta siyaasadda la askarana siyaasadda ila ka soo gudub taad itimid maxaa jira imaadan dhihin walaalkay siyaasadda isku haysana military iyo waxa soo aruursatay police yaa dad aadan ka saynin ayuu askar alle aad aragtaa soo aruuris adiga meesha beesada ii tag adiga kan ii tag yaa haddaad hadda dhaqaale kala imaado oo dawladda ay ku soo siiso lagu soo kordhiyo oo maxay ahayd raani koostiga lagu kordhiyo waxaas waa gaar lacagtu 30,000 way 10 shidaal loo goostaa 20,000 way 20kaas wax ka badan ha goobin dadkaan ay ku wareerin yaa 20kaas asluub qaybsanaysa ama aan baabuur ka gaday ama shamiinta ka gadayni oo meel ku dhisayn taas saas u ogow meelad geysana waa ogaan doonaa waxaan qabtay ummadda way ogta ninkii inacabna ogaashaba kama rabo ninkii inacab ogaasha kama rabi yaa meel dheer inaan geeyo oo wax badan qabtay kunsiyadii uu ninka beenta ah ku siiyay oo calanka ku dhiibay kaas ayaa ma garanaysaa yaa dad ku garan kartaa ka imow waxay haray hatta ma awoodaan waxaad tiri ciidan ma ahidin shacabna ma ahidin waxaad tihiin lama yaqaan qashin baad tihiin tababar baa idin furaya waa ku sabcinaya saasaad ku ogaan kartaa wuxuu wax jira inay nahay yaa saasaad ku ogaan kartaa konton sano nin askari ah yaa ku sabcinayo le aniga waxba waranaga askaraanayna dhaaf may ku dhaan haday dad yihiin intaan ku garo yaa waxa soo aruurisay dad qaab ay yihiin baan la kasayn waxa tiri kaamar qaat waa anware waa cornel kana kaamar qaadanaysan anu imatala kan way maxaa matalaad keen cornel maxaa keen asluubtu maxaa keen anwar waa booliiska yaa xasan cali khayra buunbuuniyay ciidanka badda xafiiskaas hogaankaas u dhib xasan cali khayra buunbuuniyay asigiiba haduu tagin asan saaxadu ka baxay sidaadoo kale saddexda ninba aday ku dooranayaan maalintii atiraaq meeshii laga eri yaa
madaxweyne maalintaas laga eri saaxadda uga baxday waxa la ii sheegay inaad dugsi quraan ku haysay meesha la yiraahdo Nairobi ani hadda Nairobi aan joogaa dugsi quraanna ma qabanaay ya ma fahamt kow waxbaan qabanayaa tiri wax qabo haddana waan ogahay maxaad qabanaysaa ma taqaan meelaad ku haysto hoolka weyn waad hagaajini iyo kuraastiis inaad ku haysto ama rabtaa ileen laakiin asluubi wax kale u qabtay ummadda ma maqli doonto anigana meeshaasaan maraya waxa tiri basaa la qaatay baska yaale ma tiri ma weydiis meesha lay ku arkeen baska nina iska laha meesha dhigay hadii aan shaqo u baahnana waa ku shaqaysanayn anna amaanan u hay basaa la qaatay waxba la qaatay ninkii qaadayni waa og baabuura la qaataa lagu yiri raga lacag kala baxay oo iska leh adiga la imow soo gado laakiin baabuur rag leeyahay ya hadii waxba la qaatay waxba lama qaada waxa ka fiican beenta iyo qurunka lagu dhuray kugu dhuraayeen ayagaba mootada ma qabaan hal mootada nin leh ma ku jiro xaasidii baan asaas u gashay aniga baabuur aan leeyahay gaadiid aan leeyahay ku birta adag aan leeyahay waa ifhamta guriyaan leeyahay wixii ilaahay isiiyo aniga aan leeyahay asluubka ma tabcaanin ani inta joogay ayagaan wax ugu qabanay wixii aan arka tobanka arkaba meesha lacagta ninka military systemka gee walaalaha ku sheegay waa 30 kun waa 10 waa 20 cadaan ay nagu soo gaartaa intaasaan waxaan yaan ka habayn beesa kale ka maqan waa to aad hadda dawladda ka raayso oo lagu soo kordhiyay dadkaan ay ku wareerin ya afkay ku cuneen ay ku haybinayaan maamada saajirta sidaan un baan kuugu sheegi lahaa wax walbana haddaan xitaa soo mari lahaydo walmaad intay wax marayaan colaada meel noo dhigay iyo dagaalkee meeshii wax marayaan la ii sheeg haddaad dhihiray aan kuu sheegi lahaa ii diiday gurigii ii diiday kan waa guriga anaa dhistay haddana amar xasan sheekhan kaga guuray ma ogi guriga anaa dhisto iska lahaa xasan sheekh ay ka guur guriga waxba kama qabo waxba kama qabo taas waa midaas marka waxaan ku sheegayaa waxyaabahaagi gumaadka aha oo qofkan qabiil hebel ma yahay ha gumaad aad jirtay oon kuga aqaanay booliiskaad ilaan isla joognay ku samee dadka kula jooga oo magac ay la sheeganay waa dadkii halkan soo gaarsiiyay asluubta ilaalinteeda iyo dhaqaalaheeda qofkii aad aragtiyaa waaye reer hebel waaye dheh gumaad ku samee waxaad ka heshana waxba hayga siin waxaad ka hesh in waxba hayga siin taasna waa ku leeyahay ciidan dawladeed oo ka maqan ma jiro baabuur dawladeed aan qaatay ma jiro ummadoo dhanna waa ogtay baska teegaysid basa la qaaday baa lagu tusaa hadaad xitaa qaadan kartid ya marka taasuna waa macnaheedu waa kaas waxaan kale oo maartay warka kugu dhuraayo adiga baad sheegto kulligiin ruufiyaani waaye atarina aniga weligay ruufiyaanatiin madhi waxna uma dirsano markaan dambe shaqaan markaan arkay inay shaqeyn karin yaan ciidanka asluubta xambaaray koran u qaaday meesha hadda aan sheegayuna maraya umadana waad ogtaa anna adiga igama wadine dawladda ay bedeshay shalay dawla ay geysay asluubtaga leeyay ka tag maalinta dhihi lahaana way horeysaa weligii waa sheegay tiyatan inaan ku soo noqdaa laga yaaba waa iska adduunay ma ogta adiga ya inaan ku soo noqdaa laga yaaba waa shaqo dawladeed taas faragelinayo taas inta naga gudbaa waxa ii haray waana loo kiin luga qabtay ya waana loo kiin luga qabtay dinkii lugaha noo kiin qabtay adinka idin soo toosiyayna waxaan ku iri dadka warso asba waa ogyahay weydii ya asba laftiisa weydii
ساساناي بلاي ما جرتو الدنيا حالكيدا سان yahay wax kale oo problem aan qaba ma jiraan wax ilaahay siiyeen waa leeyahay wax qabad asluubna ma hakran inoo waka isbitaalka waad xirtay aniga lacag iguma ilaah weligayba kama qaadan weligay ma la idulmay kana la iyaalay dhaqaatiirtii asluubtaan isbitaalka isugu geeyay 3 nin waay waa hal generaal kii ku garab taagnaa sawirka arkay iyo kii ku soo dacwooday Cabdinaasir la yiraaho ya iyo nin lilaha ina Yusuf Sharif saddexdaasay dhaqaatiir leedahay saddexdaan isugu geeyay waa la ogyahay waxaan warbili aadnimo u shaqeey oo isdaayaha isqa qabsanine ninba ninka kale arki waay shaqadii socon weysay asluubta dhan waa ogta kuwa beenaalayaasha waa ka qarinayaan laakiin kuwa dadka runtii sheegay weydii